الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علي ورطة وحنا اطمئن وابشر اسكب بشارة يسوع قلبنا يقودك إذا يقولوا لا ما ترتمي سؤال فقد هذا الداعي ماركا مجالس نواب بحداء أو ضمع كلام كوجر وديع كرتاه ماركا اسكب الجنوب إن شاء الله. waxaad weydiisay dhalashada iyo arrintaas runtii waqtiga bitaxdiid sida hadda dadka isbitaalada ku dhashay ama meelaha taariikhdeeda la yaqaan ku dhashay anugu kuma dhalan waxaan ku dhashay meel baadiye ah geed hoostiis ah isbitaal ahayn sida soomaalida hore u badnayd weliba iyadoo safar la yahay oo musaafir la yahay oo reerku naqraac yahay naqa waa taqaan soo maaha roobar gudoo meeshaas ugu hayaamayo iyadoo reerku hayaan yahay oo naqraac yahay ayaa hooyo allah u naxariistee iyadoo awr saaran sida la ii sheegay awrkiina waa soo gaaray magaciisana gaardi baa la dhihi jiray ayaa isagoo la intifaacsado baan garaadsaday marka awrkaasay saarnayd hooyo iyadoo calooshii igu sidaa raxmatullaahi tacaala calayha geedka hoostiisa lagu leexiyey iyadiyo islaamihii halkaasaa ku dhalatay baa laygu yidhi geedkiina waa lay tusay horta taariikhdu bitaxdiid cid u garanaysaa ma jirto laakiin dadkii magaalada joogay oo maaragtay dee iyagu waxaa taariikhaha la socday ama bilaha la socday sida waalidka allah u naxariisto iyo ninkii walaalkay iga weynaa oo curadka ahaa axmed idriis la dhihi jiro isagu markaa cadan joogay ayaa waxay ii sheegeen inay ku aadanayd 1958 bisha bitaxdiid ma garanayno laakiin waqtigaa haddii laga qiyaaso sheekh cabdirashiid waxaan ka weynahay ilaa 6-7 sano meelahaas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sheekh cali isaguna wiil yar wey wuxuu kusoo dhadhawaanayaa kuwa aan dhalay kusoo dhadhawaanaya taasna ma aha takbiir sheekh cali wuxuu soo daliishadaa oo xusuusiyaa in yar hadda halkaa kusii daro oo kasii farxiyo gurigayga maka wuxuu yidhahda miyaadan xusuusan markaan imaan jiray 80aadkii oo wiilkaaga cabdishakuur baan meel wada fariisan jiray ma xusuustaan buuri markaa imaan jirtay haddaa ma xusuusan kartid yidhi ani waa wiilkaagaa la ciyaari jiray على كل حال رجل واتاس وقت قاس حددتها تقريبا إلهي بس قرنية ماشي أقول شيء ودقمة قندلة بديه هذا وقول كباري صوماليا أبى الله نحرسته يسوي يقد ولا ورجع وضغط قاركيس واسكم مقالات لكن هذا مش شيء هدي أي ما ركتي واحد كجري المقدية أبى يسوي مهاجرة ودول كاسي من صوماليا وحركي من دلك إريتريا يقيمي وحسود دقي دول كاس بريقة وكبر وقوبي حوله بدن بومارة كان عصدوها وقالوا ينكاس ودن بوساسو يو قندلا يو عرولا يو حابو يو جسلي يو دول كحيبتا صدن بدقي وتكام بقولها الحمد لله مركا يسوي هالكاس يقيمي لكن أنا صومالي بانا شبابكم اللي أفهام iyo dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan intaba iyo shucuur ahaan waxaan ahay Soomaali magaaladaas ku dhashay alxamdulillah iyadoo ku barbaaray dugsiga quraanka sida ardayda yani Soomaalida dhaqankeedu ahaa aan ku galay kadibna iskuulka waraadkiisii ku dhigtay kadibna xamar baan u wareegay magaalada Muqdisho iskuulka halkaas aan ka galay waxyaalaha igu tajribo fiicnayd markii aan dugsiga dhexe dhiganayay waxa ka mid ahayd ololihii reer miyiga وأنا كقيم قلي كوني سجال بقولي تطوعات يا أفرتي تاسو أنا كقاطع دروس تقوى وين هذا كوسي هور مرينا يا جعل كدروك الصوماليين يا صومالي نماذا هي برشة كدروك الصوماليين وحلي جي أنا جو قندلا كل شيء وبارك إيمي ومقدش مرة أقول لنا بعديها مقالة الجوهر قبل كشغلة ده حلي جي أرض اللي هي توجرنا وانا halkaas yani dhaqanka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed isdhexgalkeedii wax badan ka faa'iideystay aad kadibna
waxaan u baxay dalka dibaddiisa 1957 bishii labaad waxaan galay dalka Sacuudiga ilaahay amarkiis iyo cajaa'ibta iyo qudrada waxaan ku socday Kuwait risq raadis baan ahaa nin dhalinyaro ah oo 19 jir ah laakiin 3 maalmood baan waxaan qaatay oo ah transit dalka Sacuudiga markii la diiday cimriyo waxaas kadibna 3 maalmood waxay noqotay 43 sano ilaa hadda inaan maka deganahay ilaahay fadligiisa meesha qofku marka wax loogu qorayo ama cimrigiisu uu noqonayo ama qadartiisu ay noqonayso ma oga meeshii dhulka ilaahay ugu barakaysnayd ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaankayga ka dhigay iyadan maaragtay intii cimrigayga ilaa waqtigaas 19 jirka aan ahaa aan ka safro aan meelaha aado Yurub aado Mareykan aado Aasiya aado Soomaaliya aado in kala aado laakiin deegaankayga rasmiga ahay wuxuu ahaa ilaaha hadda yahay magaalada barakaysan ee Makka Mukarrama iyada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunka iyo dacwada iyo diinta jacaylkeeda ilaahay ugu siiyey ma dhigan anigu sida saaxiibaday waqtigaas yimi waxay galeen jaamacadda Makka iyo jaamacadda Madiina anigu labada jaamacadood midna ma gelin ilaahayna ima qadarin laakiin waxaan isleeyahay waa ka sii fiicnayd baan helay oo ah inaan culimada hoos fadhiisto oo xarameynka labada masjidba aan culimadeeda wax ka barto masaajidda kaleeto culimadii casrigaan soo martay muslimiinta ducaadii ugu waaweynayd aan ilaahay wuxuu ii qadaray inaan hoos fadhiisto oo aan wax ka akhristo muddana aan la noolaado alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ku fikri jiray inaan iska noqdo daaciya waqtigaas aan 20 jirka ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ii xaqiijiyey qur-aanka sidii sheekh cabdirashiid yaraantii kuma aanan xifdin waa dul maray oo waa bartay laakiin ma aanan xifdin qur-aanka waxaan xifdiyey anigoo weyn oo caruur leh oo reer leh taasna waxay daliil u tahay qofku haddii ay ka go'an tahay sidii sheekhu haddaay uu yidhi diyaar ma u nahay inaynu qur-aanka xifdino haddii uu qofka niyad ka tahay diyaarna uu yahay waa xifdin karaa da' kasta uu yahay waxa xalqadda xaramka markii aan sheekha ku dul akhrin jiray ama dhiganaya xifdiga nala dhigan jiray nin aniga markaa iga weynaa 70 jir oo Bakistaani oo dalka Bakistaan ka yimid wuuna xifdiyey qur-aanka 5 sano kadib wuu dhameeyey marka qur-aanka waqtiga kasta waa xifdin kartaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin inta ka dambeysay haddee shaqada adduunka oo dee meeshan aan dalkaan ka shaqaysan jiray waxyaalo kala duwan oo shirkadaha iyo waxaas laakiin 30 sano u dambeysay dacwada iyo arrimaheedaas unbaa u badnaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu sugo dariiqaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu khaatumada iigu hagaajiyo duruusta يعني نرشة سأوركم بوسو قابيو الدرس الكواد هو نرشة يعني لحدا كسنة هذا قر ملح كلام بحضي أنا سلايا أيوة قالن كرتان الذي يردنا أي كفى إذا سكران وحوي إلهي سبحانه وتعالى كحرنان تيسا إيو كتاب القرآن كريم جعيل كيسا إلهي سبحانه وتعالى وحقوق فريا جميع الأبواب أبواب كستاما الباب كستاو قاهر مركا نعمة وقوه الرئيساء مجلسي وقوه الرئيان السلاية نولوشا أن نقدر كريم معان كذا وكتاب القرآن وحي كتاب إلهي سبحانه وتعالى تاسوا درسي ويه درسك اللباد محولي قفك هدي وليه هي همت عالية وميل إنه قارئ أما هدف يوجد وليه هي وبهي هي همت داسوين حنبارتو إيه لما قلنا إزاه لبضا بار أنا مستمركي مثلا القرآن كان حفظيني معلم كان صلاة الفجر ساعات كهر بنقول يسوق تيجي كدبنا وسوق هذه جري معلق عن قوة تكنجرني حرم كشريف كعبة
kadibna darsiga ayaan uga bixi jiray kadibna gurigiisa ayaan ku celin jiray kadibna anigu markaasaan shaqadayda aadi jiray marka 2 saac ka hor waa inaan diyaar garoobaa salaada fajr ka hor ama saacad ugu yaraan ka hor si aan u dhibisto u tago isaga u soo qaado aan u geeyo haddana u celiyo haddana darsi ka soo haddana aan soo noqdo intaas waxaa xambaarayay jacaylka marka haddii aad himadeeda hayso waxba kuguma adkaanayaan waxba sacab kuguma noqonayaan ha culaysan taasna waa qodobka saddexaad oo aan ku darayo waxa weeye يعني سفرتن iyo dacwadan badan duruus badan bay ku siisaa laakiin hal darsi ayaan isleeyahay waa la wadaagi kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaaska aan ugu irsaaqo ducaada iyo dhalinyarada dadka dacwada diinta ilaahay doonaya ikhlaaska ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga inuu daacadnimo ka ogaado cid kaloo aad la wadaagi karto ama kula wadaagi kartaa ma jirto cid kaloo aad ugu mujaamalayn karaysaana ma jirto laakiin waa midda najaaxaaga ama guushaada koowaad keeni karta cid inaadan ku mujaamalayn cid idaadan tusin ilaahay qalbigaaga ha ka daalacdo waxa runtu tahay runna ula imo waad ku najaxaysaa dacwadaada ama diintaada ama wixii aad wado nooc kastaba ha noqdo midda labaadna waxa weeye dacwadaas waxaad wax ka keeni kartaa inaad naftaada siiso kulligeed say u dhan tahay oo aad iyada keenayso waxaa laga yaabaa dhinacyo badan oo kaleeto inay kaaga tagaan waa sax hadda masalan aniga waxaan qirsanahay inay waxyaalo badan oo kale igaga tegayaan carruurtaydii waxyaalo badan oo xaq ay u lahaayeen inaanay helayn reerahaygii inaanay helahayn anigii naftaydii inaanay helihayn waxyaalihii adduunka baan ka hadlaya laakiin haddii aad doonayso mabda ama risaalo ama ujeeddo inaad xaqiijiso naftaada inaad siiso way u warto waxyaalo kaloo badan baad ku weydaysaa waa sax oo kaa dheelinaya iyagana waxaan weydiistaa ama xaasaska ha noqdaan ama ilmaha ha noqdaan cudurdaar iyo cafis waayo waktigii iyaga badan oo marar badan aan siin lahaa ayaa wuxuu ku baxayaa ummadda iyo dacwada waa laga yaabaa marka inay iga cafiyaan oo iga siiyaan laakiin adiguna markaasunbaad waxay ku keeni kartaa mabda aad xambaarsan tahay taasna waxaan isleeyahay waxyaalaha duruusta waxaan kaloo idiin sheegayaa oo warku soo khatimayaa haddaanu sheekh cali su-aale igula soo noqon dadkan soomaaliyeed ayaan anigu ku soo dhex koray intana ku soo leekaaday intana aan ku soo leekaaday waxaan aaminsanahay iyaga inaan bartay iyaguna ay barteen saas darteed waxaan idinka sheegayaa waxyaalahooda yani xumaan badan baa jirta oo laga sheego maanta waxaan idiin sheegaa anigu yani kalsoonida aan ku qabo dadka soomaaliyeed inay tahay midda aniga najaaxayga qaybta koowaadka ah yani haddii aan wax ku najaxay ama camal aan ku guulaystay bacdallaahi sabab waxaa u ah kalsoonida anigu aan ku qabo dadkaas for example haddii aan meel imaado waddan weligay aanan u tegin ama gobol aanan weligay horta waa wada maday gobollada soomaalida oo dhan lawi cadda laga soo bilaabo ilaa iyo raas kambooni gobol aanan tegin ama aanan dacwo ka gelin ama aanan wax ka qaban ma jiro tajribo fiican baan marka u leeyahay qabaa'ilkeeda dadkeeda magaalooyinkeeda waan bartay marka waana la noolaaday gudo iyo dibad waxaan idiin sheegayaa si guud ahaaneed dad fiican inay yihiin dad risaalo iyo adduun lagu furi karana inay yihiin hadday helaan hogaankii wanaagsanaayo ku furay inay yihiin xalaalay wixii la doonana shucuubta adduunka aan laga heli karin in laga helayo oo miisaada hoggaan ay leeyihin bani aadam weeyo ceebahooda kale waa leeyihin laakiin intaasna waa tajribada aniga aan kala soo baxay saas darteed haddii aan reer kasta ama magaalo kasta ama gobol kasta dad soomaaliyeed oo meel jooga haddaan u tago waxaan ogahay ama aan aaminsanahay oo ku kalsoonahay inaan ku najeexi karo baan aaminsan waxaana la yidhaahdaa dee sidaad adigu dadka ka ictiqaado ayay adigana kuu noqdaan
ساسانا إلهي سبحانه وتعالى يقسيه إلهينا وحن كبر إياه خير كاسي ومحبضاس إنه إلهي سبحانه وتعالى نودع يبيرو شيء على أدام وحبكو هارين ويلي إنا تهي أيام الخاتي هل كان وقع عمانتا ويران توزنا مجاوين إن شاء الله تعالى سودي يا خير. بارك الله فيك.